waxaa magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka ka dhacday doorasho ay ku tartamayeen musharaxiinta PDF ee Puntland Diaspora Forum waxaana ka soo qayb galay bulshada reer Puntland intooda badan oo ka soo kici timay 16 gobol ee dalkani Jarmalka uu ka kooban yahay waxaana bulshadii goobta ku sugnayd ay kala dooranayeen laba hogaamiye oo ku tartamayay jagada PDF iyo waliba hogaamiyaha dhalinyarada iyo waliba hogaamiyaha garabka haweenka ee jaaliyada PDF ee dalkani Jarmalka waxaana intii doorashadu ay socotay ahay qaab si dimuqraadi ah ay ugu dhacaysay iyadoo uu ku guuleystay Maxamed Cali oo la tartamayay Kaarshe waxaan ku soo celinayaa Maxamuud Axmed Nuur Faarax iyo Maxamed Cabdi Kariim Cali kii qofkaas magacu qofku raacsan yahay magacaas ku qorayaa labadaba midna waa Maxamuud midna waa Maxamed meel kale fog ma jirto isaga caawimaadiisa lahaantiisa iyo taladiisa wax soconayso qof walba oo inaga ina ka mid ah xubinimadiisa maanta furkiyo uu isqoro jaaliyadu waxay leedahay khasnad furan muddo sanad ku dhow runtii waxaa ka mid ah jaaliyada dad gaaraya ilaa 400 oo qof ayaa isxaadiriyay inay jaaliyada taageero u yihiin odayaasha hooyooyinka doorashadeena xalaashayna ugu dhacday runtii aad baan ugu faraxsanahay waana mid aan soo dhaweynayno waana mid aniga aan aad kaga mahadcelinayo keena bulshada aan ee dhalinyarada waxaan ugu darahayaa kolkaas Sodon Maxamed Cali majoor waad ku mahadsantihiin habaryada siiyeen waa ku mahadsan yihiin ay isugu dhiibeen isugu tiraazuleen khayr Allah hanaanka PDF ee doorashadooda ay u dhacday ayaa runtii ah hanaan mudan ku dayasho taasi oo tusaale u ah jaaliyadaha kale ee bulshada weynta afka Soomaaliga ku hadasha isla markaana xor ay u noqonayaan inay doortaan cid hoggaanka u qabanaysa bulshada isla markaana loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan isku xidhka iyo waliba midahaanshaha bulsho ay ku midowdo Mustafa Xaaji Aadan Haaruun telefishinka caalamiga ee Home Cable TV Jarmalka